Inbadan oo inaga mid ah way jecel yihiin Cyber Securityga inay noqdaan hackers oo fi aad u xiiso badan. Okay, hadaba markay kulano amaba soo gaadhno Linux dadka ugu badani way ka hadhaan Cyber Securityga mana sii wadaan. Sababtu maxay tahay? Linux maana operating system user friendly sida Windows laguma odhanayo buttonkan tabo kadibna done shaqadiisa ay ku qabsoontay. Linux ma kala joogo laguma xisaabtamo wax user friendly la dhaho wana takeynaysa in inaga la qabsanay Windows ama Mac OS aan damacno inay barano Cyber Security inagoon diyaar u ahayn barashada Linux. Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa waxyaabaha keenaya inay nagu adkaato barashada Linux inana nacsiya sida aynu taasi u xallin karno. Mawduucana waa mid muhiim ah dhalinyarta ku cusub Cyber Securityga iyo tigal hacking-ka. Haddii wali baran Linux amaba aad bilow ku tahay waa ku muhiim muuqaalkani. Muuqaalkana hore waxaan dhawaan ku soo qaadanay sababta Windows uusan wahayn operating system ku habboon barashada iyo qabashada shaqooyinka Cyber Securityga. Kaasi ayaan ku soo qaadanay sababta Linux ay muhiim u tahay. Haddaba su'aasha isweydiinta mudani waa maxay nacsiya barashada Linux? Qodobo muhiim ah ayaa jira markaani. ugu horeyn Linux mahan operating system si saaxiibtinimo leh ku soo dhaweynaya ma leh UI qurux badan tilmaamo la mid ah kuwa Windows ama Mac OS ee sidan samee iyo buttonkan tabo. Linux waxa uu adeegsanaya commands wax yar hadda ka khalado amaba aad meel capital letter ahayd aad small ka dhigto ku shaqeyn maayo command-kii oo error ayuu madakaysaa. Sababta Cyber Security lagu adeegsanayana waa in Linux aan ku helino control dhammaystiran waana ku maamuli karno shaqooyinka Cyber Security-ga inagoo si toos ah ku maamulayna commands. Pointigan rabnaana waa kan Cyber Security iyo Linux sinaba ma kala maarmayaan. Haddii aad rabto inaad baratid Cyber Security ama vertical hacking waa inaad sii martaa terminalka waa inaad sii martaa Linux. Markaynu safarada diyaaradaha u baxayno soo sii marno terminal waana shardi inaad si dhex marto terminalka Soomahan. Sidaas oo kale Cyber Security waxaynu sii maraynaa terminalka waxaynu sii maraynaa Linux. Hadaba sidee aynu wajihi karnaa xaqiiqada ah in Linux aysan u fududeyn sida Windows oo dad badani ay dhexda ku joojiyaan maadaama ay fahmi waayaan sidaasna ay ku ilaawaan inta ay barteenba. Caqabada dhalinyarada ugu badan ka hortaagan barashada Linux. Taasi si aynu xalino waxaynu u baahannahay istaraatiijiyad. ugu horeyn aynu ogaano in Linux dhammaanteedba aynan adeegsanayn. Waxaa jira qaybo muhiim ah waa inaad barataa waana inta base-ka u ah Linux. marka lagu leeyahay Linux inaad barataa maaha inaad tool kasta baratid kaliya waxa u baahan tahay marka hore adeegsato Linux distribution fiican sida Kali ama Parrot oo kale aadna barato si aad ula qabsan lahayd adeegsiga operating system-kan cusub uuna ku noqon lahaa mid familiar la tahay. taasina waxay ku ogolaanaysaa inaad ka soo baxdo caalamka graphic interface-ka aadna barato command-iska basic-ga ah sida maamulida faylasha iyo dhaqdhaqaaqad ka sameynayso operating system-kaas dhexdiisa. erayada command-isku waxay taagan yihiin isoo wax loo update gareeyo waxna loo soo degsado waxyaabaha yar ee la midka ah وين تكون بالوضع مركه هره marka la qabsto operating-kan waxyaabaha basic ahna baratid markaas ay u gudbi kartaa qaybaha xiga iyo soo loo adeegsado toolska. hal qodob kalena way xasuusinaynaa marka Linux baranayso waa inaad maskaxda ku haysaa in wax badan aad ugu isbarto marka laga yimaado waxyaabaha internet ka heli karto Linux waxa ka buuxa commands badan toolska iyo qayb kastana waxay leeyihiin command-kan help oo ku baranayso commands kale isoo adeegsan karto. sidoo kale waxayna jira commands aan mar hore soo qaadanay sida apropos iyo man oo ka caawinaya barashada shaqooyinka toolska iyo commandska adigoo kala tagelinaya shaqada ama magaca toolka rabto waana inaad in badan ku xisaabtantaa waxyaabaha bari karto adigoo adeegsanaya commandskan. muuqaalkana maanta intaas ay ku eegyahay intee leg ay Linux ka baratay si mar uu makan yahay Linux kadibna dib ugu soo noqotay nagula wadaag experience-gaagaasi qaybta commentiga mahadsanid.